golaha deegaanka ee Tawa Hamlets ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay mooshin lagu aqoonsanayo Jamhuuriyadda Somaliland oo muddo 25 sano ah ictiraaf ka raadinaysay beesha caalamka. Kalfadhi gaar ah oo lagu qabtay xarunta Tawa Hamlets ee ku taala bariga caasimadda Britain ee London ayaa xubnaha golahaasi si buuxda u aqoonsadeen madaxbannaanida Somaliland oo sida ay sheegeen buuxisay dhammaan shuruudaha looga baahan yahay waddan kasta oo ka mid ah caalamka. Mooshinka Somaliland lagu aqoonsaday Arbacadii shalay ayaa imanaya kadib olole muddooyin qaatay oo ay horboodayeen maayirka sida tooska loo doortay John Biggs iyo xubno kale oo tiro badan, waxaana golaha soo hordhigay xildhibaanada xisbiga Labourka iyo xildhibaanada dhalashahan ka soo jeeda dalka Somaliland ee Amina Ahmed. Kadib kulanka mooshinka lagu ansixiyay golaha Tawa Hamlets waxa uu ugu baaqay dawladda Ingiriiska iyo midowga Yurub inay aqoonsadaan qadiyadda madaxbannaanida Somaliland oo ah arrin aan indhaha laga qarsan karin. Dawladda Somaliland ayaa wafdi ballaaran u dirtay si ay uga qayb galaan munaasabadda lagu aqoonsanayo waddanka, waxaana wafdigan ka mid ahaa wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo saraakiil sarsare oo ka socda golayaasha qaranka. Bulshada Somaliland ee ku dhaqan dalka Britain ayaa isu diyaarinaya munaasabado mahadnaqa iyo dabaaldegyo ay ku muujinayaan muhiimadda ay waddankooda u leedahay inuu helo aqoonsi caalami ah. Golaha deegaanka ee Tawa Hamlets ayaa noqonaya golihii saddexaad ee si rasmi ah u aqoonsada Somaliland, waxaana ka horeeyay golayaasha deegaanada ee magaalooyinka Sheffield iyo Cardiff. Nuruddin Abdullahi Culujoog, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Hargeysa.